haweenku waa aasaasaha bulshada burburkii Soomaaliya kadib waxay haweenku kaalin wanaagsan ka ciyaareen nolosha bulshada iyagoona u babac dhigay mas'uuliyadda la xiriirta kaafinta nolosha qoysaska waxaana haweenka ay geed dheer iyo geed gaaban labaduba u fuuleen sidii ay dhaqaale ku abuuri lahaayeen waxaana muuqanaysa in kaalin wanaagsan ay kaga jiraan dhinacyada wacyigelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta ku baraarujinta bulshada dhinacyada waxbarashada nabadda ayay sidoo kale kaalin wanaagsan ka ciyaareen haweenka waxaana iskuulada jaamacadaha dugsiyada iyo dhammaan goobaha waxbarasho lagu arkayaa haween waxbaranaya iyo sidoo kale kuwa waxbaraya ardayda sidoo kale dumarka Soomaaliyeed waxay qayb ka qaataan joojinta colaadda sokeeye sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa muuqanaysa in saamiga gabdhaha waxbartay oo ka sii sare marayo halkii sanado ka hor ay xaaladdu ahayd imika ayaa waxaa la arkayaa gabdho badan oo waxbaranaya walow ayna cadad ahaan u dhigmin wiilasha haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa qaabka ay haweenku uga qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho maraan la dhaxmaray mikrofoonka Jubaland TV si aan wax uga ogaado fikirka ay ka qabaan qaabka ay uga qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta Haariya Khaliif Maxamuud oo ka mid ah ardayda dhigata heerka koowaad ee jaamacadda waxayna barataa kulliyadda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qabto in gabdhaha Soomaaliyeed ay sameyn karaan ururo wacyigeliyo bulshada ruuxaantii dumarka kaalin weyn ayay wax uga qayb qaadan karaan isdhaxgalka iyo dib u heshiisiinta bulshada waxa ugu horeeyo oo dumarka uga qayb qaadan karaan waxay tahay wacyigelin inay sameystaan dumarka ururo oo ay wada tashi ku sameeyaan hadii ahaan lahayd xaafadda hadii ahaan lahayd goobaha ka shaqeeyaan meel walba inay sameystaan ururo dumar oo isku xiran si ay dadka u wacyigeliyaan in ay oday dhaqameedyada geedaha noo fadhiisto in ay bahalkii maxaa la dhahaa si hoose wax u sheegaan oo ay fikradoodii meesha la soo fadhiistaan geedka ubax cali siyaad ayaa dumarka Soomaaliyeed ku baraarujinaysa inay wax bartaan si ay uga qayb qaataan nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka waxyaabo badan ayay horta uga qayb qaadan karaan waxaana ugu horeysa education dadka ka qayb qaadanaya waa inay horta aqoon leedahay hooyada waa inay wax taqaanaa sababtoo ah hadii ay wax taqaano waa la wada dhageysanaa maanta ay ku soo hor istaagto laakiin hadii ay tahay hooyo aan waxba aqoon lahayn qof jaanis xitaa siinaysa ma lahan waayo waxa la isdhahaa maxay ka hadlayaan maxay soo ogtahay waxa kale oo ugu qayb qaadan karaan hooyooyinka inay keenaan sida siyaasadda kale urur u hadlaayo hooyooyinka waa in ay sameeyaan wacyigelin waa in ay sameeyaan tababaro oo looga hadlaayo nabadda sababtoo ah nabad la'aan waa nolol la'aan hadii la dhahana nabadda maxay tahay waxyaabaha naga hortaagan ambuulaaska amniga amnigu waa in ay horta si aad ah ugu qayb qaadataa sababtoo ah wiilka maanta wadada taagan ee dhibaatada sameynaya waxa soo dirsada hooyo waxa wax u sheegi karo hooyo hadii ay dhahdo wiilkeygiyo waxaan weyna dhibayaan aniga ay dhibayaan adiga ku dhibayaan iska daa ma dhacayso marka waxyaabo kale inuu si gudubgal Haariya Khaliif Maxamuud ayaa mar kale baaq u diraysa gabdhaha Soomaaliyeed inay u huraan fikirkooda xoogooda iyo dhaqaalahooda si ay uga qayb qaataan kaalinta dib u heshiisiinta iyo sidoo kale nabadgelyada dalka sidoo kale haweenka waxay uga qayb qaadan karaan nabadda in ay geliyaan fikradoodii xoogoodii dhaqaalahoodii waxbarashadii yani wax walba inay geliyaan ayay nabadda uga qayb qaadan karaan يعني maanta aqoonta yarta ku jirto hadii ay geliso dadka la dariska ah iyo bulshada ku dhaxnooleed saameyn weyn ay ku yeelanaysaa nabadda sidoo kale dhaqaaleedii hadii geliso oo dhaqaale ay haysato ay geliso saameyn weyn ku yeelanaysaa wax walbeeto si xoog badan ay haweenka uga qayb qaadan karaan nabadda Bilan Axmed oo ka hadlaysay goob lagu dhiirigelinayo gabdhaha Soomaaliyeed ayaa sheegtay in gabdhaha kaalin wanaagsan ay ka qaadan karaan dhismaha dawladnimo si loo helo nabadgelyo buuxdo inaan dhisno dawladnimada nabadda iyo nolosha iyo dadku maxay ku hoos nool yihiin waxay ku hoos nool yihiin dawladda Soomaaliya wadanka markuu burburayay sagaashameeyadii koob maxaa laga bilaabay burburka dawladda meesha laga saaray Soomaaliya dawladda markii meesha laga saaray waxa imaado wixii ku hoos jiro dhana burburay marka waxaan rabnaa hadda
inkastoo dowlad ay jirto laakiin dowladii macnaha tii awoodi lahayd iyo mid adduunka la tartami karta aysan weli gaarsiisnayn heerka ma dhaliilayo dowladda waxaan leeyahay annagaa ah dadkii laga rabay inay dowladda xoojiyaan la shaqeeyaan oo maxay wax badan ay isla qaban annaga dhan dowlad ah Firdawsi Xasan Cabdi warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Muqdisho